wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire oo magaalada Hargeysa kula hadlay TV-ga caalamiga Som News ayaa si adag uga hadlay safar uu maalintii shalay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag uu ku yimid wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Jamaal Maxamed Xasan. Wasiir Saad ayaa sheegay in xukuumadahan si weyn uga biyadiidan yihiin talaabadaasi isla markaasna waxa uu sheegay inay tahay ku xadgudub ka dhan ah xuduudaha Soomaaliland. Saad wasiir waxa jirta in maalintii shalay uu magaalada Badhan ee gobolka Sanaag uu yimid wasiirka dawladda federaalka ee Soomaaliya uqaabilsan arrimaha maalgashiga iyo qorsheynta wasiir bal xukuumadahan arintaas aad u aragta walaal arrinka runtii aad iyo aad baanu mataqaanaa ayaan uga biyadiidanahay Soomaaliya iyo Somaliland xad baa u dhaxeeya caalamiga oo la yaqaano in xadka laga soo gudbo waxay tahay xad gudub bay ku tahay maxay raadayeen Soomaaliya arrinkaasna runtii wuxuu khalkhal gelinaya cilaaqaadkii aanu lahayn iyo Soomaaliya waxaan ku dambeyn doonaa oo iska horimaad ma ku dambeyn doonaa taasan u danahayn dadka deegaanka iyo maxay raadayeen gobolka Toon. Maxamed Xasan Daacad, Som News, Hargeysa.